السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. walaalayaal waa walaalkiin maxamed siyaad iyo channelkii aad uga barateen faafinta khayrka iyo inaan khayrka isu dardaaranno wax walba wanaagsan oo ummadeena u wanaagsan. caawana walaalayaal waxaan idin wadaa mowduuc aad iyo aad muhiim u ah. mowduucaas oo in badan oo dadka ka mid ah ay maaragtay dhib ku qabaan oo ay aad u raadinayaan daawadiisa. walaalayaal ma maqashaa maaragtay ama ma aragtaa waqtiyo badan dad ama qof dhintay. in badan oo dadkaas ka mid ah waxay u dhimanayaan cayn ama il ku dhacday. nabiga sallallahu alayhi wa sallam ayaa noo sheegay arrinkaas. nabiga wuxuu yiri sallallahu alayhi wa sallam: أكثر من يموت من أمتي بعد قضاء الله وقدره. أنت أقبضا أمدي إذا دمانيسو مركا لقصو قضاء إلهي قدر كيسا وحيو دمانيان بالعين إلبا دمانيان. سيدي مركا أني أديقا أقبض بعد نارنكاس سيدي نفتيرنا أقا إلى لنا داد كان جعلنا عرورتنا أقا إلى لنا وحاجرتو سدح arrimood ama saddex waxyaabood ama saddex dhufays oo aad isaga ilaalin karta arrinkaas. haddii aad saddexda arrimood ku dadaasho ma awoodi karto il meel alla meeshii doonta ha joogtee inay maaragtay jirkaaga gasho. nala soco, khayrkana sii faafi, walaalahana gaarsii. faddaallu cala alkhayri ka faacilih. ma jirto walaalayaal cayn ama il ku asiibi karto haddii saddexdan shay aad ku dadaasho. saddexdaas shay walaalayaal waa maaragtay waa wax adkaarta uu nabiga sallallahu alayhi wa sallam na baray ka mid ah. adkaarta uu nabiga na baray ayay ka mid tahay. saddexdaas shay si guud haddaan u dulmaro, qodobka ugu horeeya walaalayaal waxaa weeyaan waa qalbigaaga. qalbigaaga weeyaan diraca ama cambuur bireedka koowaad ee kaa ilaalin kara isha waa qalbigaaga walaalayaal. waa maxay? sidee buu qalbigaygu iga ilaalin karaa isha? waa su-aal laga yaabo inaad isweydiinayso. su-aashaas haddii aan ka jawaabno waxaan dhihi karnaa walaalayaal waxaa weeyaan tawakulka ama tala saarashadu waa camal qalbiga kasoo fulo. kullamaa marka tawakulkaaga uu sarreeyo kullamaa maaragtay aad ka badbaadayso isha iyo cudurrada maaragtay nooceeda oo kala ee dadka ku dhaco walaalayaal. sababtoo ilaahay wuxuu leeyahay: waman yatawakkal cala allahi fahuwa xasbuh ay kaafiih. qofka ilaahay tala saarta ilahay waa ku filan yahay. alaysa allahu bikaafin cabdah. ilaahay ma uusan ahayn mid ku filan addoonkiisa? balaa, ilaahay waa ku filan yahay addoonkiisa walaalayaal. waxaa laga yaabaa su-aalkan inaad isweydiinayso: sidee baan ilaahay u tala saartaa? maxaad maaragtay uga murugaysaa? yacni isha maxaad uga waloolaysaa? midka kaa kaafinaya waa allah. ma waxaad ku fakaraysaa makhluuqa inuu yahay mid ka maaragtay awood badan khaaliqa. ilaahay wuxuu leeyahay markuu suxarada kasoo sheekeeyey fi suurati albaqara iyo maaragtay camalka ay samaynayaan, ilahay wuxuu yidhi: wamaa hum bidaariina bihi min axad. iyagu ma aha sixirka ay samaynayaan kuwa ku dhibi kara qof إلا بإذن الله إله إذنكي مويانه. هذا إشا دبعت هذا ما دعي كرتو أو ما قف كمان سيبي كرتو إلا ما رتب بإذن الله موجي. هذا بعده سيدا أوج محد والولي سامر كول عليه. إلهينا ما هم يتبلن ككبحه، ما هي بوينا يتبلن ككبحه. قضب كلابات أما هو بكلابات هذا هيستوى عرب كاجا، لكن بشرط شرط الأسوام حي. shardigaas waxaa weeyaan inuu ahaadaa mid ku cabbaysan oo maaragtay silaax ama hub kala duwan. hubkaas noocyadiisu ay kala duwan yihiin oo waqtiyo kala duwan leh. qaar maalinkii la guto, qaar habeenkii la guto, qaar waqti walba la guto ayaa jira walaalayaal. waa maxay hubkaas? bacda salaati alcasr waxaad akhrinaysaa adkaar almasaa. bacda almaqrib oo waqtiga habeenkii ah waxaad akhrinaysaa aakhir aayatayn min suurati albaqara. labada aayadood ee ugu dambayso suurat albaqara. nabigu wuxuu leeyahay sallallahu alayhi wasallam: man qara'a bil aayatayn min aakhiri suurati albaqarati fi laylatin kafataha.
qofkii akhriya labada aayadood ee ugu dambaysa suurat albaqara habeen waa ku filan yihiin wax walbay uga filan yihiin markaad seexanaysa aayatul kursi ayaad akhrinaysaa sababtoo nabigu waxaa ka sugan salawaatu rabbi wasalaamuhu calayh inuu leeyahay lan yazaala calayka min allahi xaafid walaa yaqrubannaka shaytaanan xataa tusbix haddii aad aayatul kursi akhriso markaad seexanayso ilaahay inuu ku ilaalinayo kama zuulaayo shaydaanna kuma soo dhawaanayo ilaa aad ka waabarisato salaada subax ayaad dukanaysaa walaalayaal man salla alfajra fahuwa fii dimmat illaah qofkii salaada subax dukadaa ilaahay ammaankiisuu ku jiraa walaalayaal sidoo kale walaalayaal markii salaada subax aad dukato adkaar sabax ayaad akhrinaysaa adkaar sabax ayaad akhrinaysaa iyaguna waxay kaaga filan yihiin maaragtay ilaa iyo laga gaarayo casirkii sidoo kale maaragtay salaatu duxa 2 ragca ilaa 4 ragca tukanaysaa النبي عليه صلى الله عليه وسلم حديث إلهي كورنايو قال الله عز وجل إلهي بوحيري يا ابن آدم لا تعجز عن 4 ركعات من أول النهار أكفك آخره هكا عجز 4 ركعات هبينك مالنك بالله ويسأدكته مالنك انت كريما أنا كافناية ولا ليال وحكى له جرى الدعاء قوبتك اللي حريرته قفك مركو قولي الدقاء أما هو مال تقايو وإمارة إنه دعاء آخرين دعاء وامحي من نزل منزلا فقال النبي عليه الصلاة والسلام قفكي قوب دقاء أما قولي دقاء إيرا هذا أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق دعاء سخرستا إلهي بما ينقلي إلهي كلماتي لما يسكت ربان ما ينقلي من شر ما خلق بان كما ينقلي انتو أبوري مارت الشر كوضان كما ينقلي النبي عليه لم يضره شيء حتى يرتحل من منزله ذلك واحد بقى مجرو إلا وقولي جيساس ومارتي أما ما يشاء وكاه xirxirto oo uu ka guuro waxaa laga yaabaa inaad isweydiinayso ilmaha sidee baan isha u ilaaliya carruurtayda waxaan samaynaynaa sidii uu nabiga sala allahu calayhi waalihi wasalam sameeyey xuseen iyo xasan uu u sameeyey ilmaha ayaad u imanaysa waxaadna ku dhahaysaa uciiduka bikalimaati illaahi taamma min kulli shaytaanin wahaamma wa min kulli caynin laamma marka walaalayaal maarata haddii ay laba yihiin lafdiga ugu horeeya ayaad bedelaysaa oo waxaad daysaa uciidukuma hadday gabar tahay uciiduki hadday badan yihiin uciidukum ayaad daysaa walaalayaal ducadaas ma ahan keliya duca maaratay ku gaabsanaysa carruurta oo keliya walaalayaal kalimaad kale oo isha kaa ilaalinaya ayaad dhihi kartaa si guud maa sha allah laa quwata illa billah saaxibu ljannatayn buu ilaahay ka sheekeeyey ninkii labada beere lahaa maara suurat alkahf ilaahay uga sheekeeyey إلهي وحيره ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله صاحب كيس أيوه وحكوليه سو نستحينا ورما دهد ما شاء الله لا قوة إلا بالله ما دهد مركات مارتك جلسو بيرهاجا مت لبضع بيرات متكم إذا سيو إلهي كاجا إلهيو إيش ابن آدمك وحكم إذا دعوينك قفك كإلهي ولا ليال مارته وحكم إذا رقية جبريل عليه السلام للنبي رقية جبريل والنبي مارته قدر الأخري وآهد بسم الله يبريك من كل داء ومن كل داء يشفيك ومن شر حاسد إذا حسد وشر كل ذي عين بسم الله يبريك ومن كل داء يشفيك ومن شر حاسد إذا حسد وشر كل ذي عين وكلمات ير إلهي مقعيس الله مارتك بريلاي كعافنا يحنون حسد والبنا مارتك يمت والبا حاسد أو حسد صاحبنا كمارتك كافنا أو مارتك بنعك مرناي يمت والبا صاحب الشركي سولا sidoo kale ruqyo kala jirto jibriil nabiga ku dul aqriyo waxa weeyaan bismillaahi arqiik min kulli shay'in yu'dik min sharri kulli nafsin aw 'aynin hasidin allah yashfi ilaahay magaciisan maarata ruqyadan kugu saaraya maarata dib walbo wax walbo ku dhibayaan ka saaraya oo kaaga tufaya min sharri kulli naf walba sharteeda maarata ka yani kaaga tufaya aw 'aynin hasid ama il hasid allah yashfik ilaaha ku caafiyo bismillaahi arqiik darciga saddexaad ama maaragtay dhufayska saddexaad ama cambuur bireedka saddexaad ee uga badbaadi kartid walaalayaal waxa weeyaan waa ficilkaaga tii ugu horeysan soo sheegna waa maxay waa qalbigaaga midda labaadna waa carabkaaga midka saddexaad ugu dambeeyna waa ficilkaaga iyo ficilada aad samaynaysid haddaba ficilada aad samaynaysid qofka aad ishiisa aad ka cabsanayso aad isaga ilaalinaysid ayaa loo baahan inaad samayso sidii ay ambiyada ilaahayba sameeyeen وكان يعقوب النبي إلهي كشكي قرآن كده حديثة الميسا يا وحكوي ولشيسي يا بني لا تدخلوا من باب واحد ولش دي وهل الباب هكذا لنا
وادخلوا من أبواب متفرقة الباب بدن كجلا أو كلا دوان ومحوساوي المفسرين تحيل هذين خاف عليهم من العين لجمالهم ولكثرتهم البوغ عبصدي وروح ذوذا يبدن ذوذا ابن القيم رحمه الله وحوليه مركو عارفين كان لا مالته إيش مالته داود ومن علاج العين والاحتراز من داود إيش مالته إسكيلال أنت ذو حكم ذا ستر محاسن من يخاف عليه العين إنه مالته إيش قفك وعبصنا محاسن تيسا إنه قريه وحا إيش اللي علينا وقريه سيدا البغوي في كتاب شرح السنة وكشاغي عثمان ابن عفان بأوحو أركي رضي الله عنه ويل يرى لن يرى قرحسن وما أركتي يعني ماشان لفقريتك وتعلو علامة يرى كتوسيس قرح ومارت مركز وحيري قرية علامة دسموا نونتها لألا تصيبه العين مذوبية ويلا أركب سي مارت إيش أيسن يعني ومارتي أيسن وأصيبن سيدين ضدك كلا ويلا لنكرا إيش ولا ليا نبي عليه صلى الله عليه وسلم ما يمنع أحدكم متكين محاك الربا إذا رأى من أخيه ما يعجبه ولكن يدوك مارت يعني عجب قليل في نفسه وماله فليبرك عليه اللهم بارك له اللهم بارك له إله أبركه وحيس فإن العين حق إيش هو حق للنبي صلى الله عليه وسلم أفعاش وحكام إذا ولا ليال وحيالها هاga أما نلوش هذا كسابسا إن هذا ضدك وكشكين أنت وحاجرت إني ضدك صبر صودقان وعنتضاد صودقان وعروتضاد صودقان وميلول بيجوان صودقان أرنكاسنا ولا ليال وحكام وحيالها ضدك إيشا مارت كل ذو وأسود الدجية أي كم تاعي النبي صلى الله عليه وسلم حديث بوحكله استعينوا على إنجاح حوائجكم بالكتمان أرميه إن تكون ليستان وحدوك الميزتان قرنتا فإن كل ذي نعمة محسود قفوا بالنعمة وصاحبة ومالتي حسد أيو ليها مركا ولا للفعاش وحاكم إذا مالتي دبعت هذا قفك إيش كله حسود دبعت هذا يعني قفك كويلاستي إنه مالتي كويسيستو kadibna biyaha sita aad korkaaga ku shubto sida uu maartay saxaabada mid kale oo isha ugu asiibeen min arrinka uu ka carooday kadibna uu yiri ala barakta allahumma barik lahu ma dadit markaad maartay yani saameynayso ightasil lahu qubaysa bi nabi sallallahu alayhi wasallam ninka wajigiisa ayuu dhaqay gacmihiisa iyo maartay yani sidoo kale labadiisa maartay xusul ayuu dhaqay labadiisa lugoodna atraaftooda ayuu dhaqay iyo hoos guntigiisa ayuu hoosta maartay hoostiisa ayuu dhaqay weel ayuu biyo ku shubay biyina ninkii ayaa dusha looga shubay isla waqtigiina waa uu ka bogsaday xanuunkii walaalayaal nabi wali wada istawsiltum faghsilu hadii lidin ka codsado inaad maartay u qubaysataan qofka u qubaysta oo maartay hadibina oo hadidin arrinkaas afcaasha walaalayaal maartay waxa kamid ah isha ka ilaalin kara walaalayaal inaad iska ilaaliso macaasida oo ilaahay uu nacab yahay si uu maartay ilaahay uu kaaga ilaaliyo isha walaalayaal نبينا كسوغن حديث كي لو ذي غاني مشهور كا احفظ الله يحفظك إلهي أمركيس إلالي إلهي واكو إلالينا يا عرمها أيو مالتي كو إلالينا يا مال بيو حر يقدر بو إلهي كا إلالينا يا marka dadka alla ka cabsiga badan waa dadka maartay uga maartay fogaanshaha badan maartay inay dhibaato ay asibto ilaahay wala waa in tasbiru wa tattaqu la yadurrukum kayduhum shay'an oo hadaad sabartaan oo aad alla ka cabsataan oo dawsataan dhagartooda waxba idin maartay dhib ay idin geysan mayso marka walaalayaal wax walbo maartay maanta dhibaato haysato waxa sabab ah waxa ugu dhow waa wixii naasibay bisabab dunubina oo asibo walaalayaal marka maartay waxana laga rabaa yani inaan arrimahaasito aan ogaano wixii aan kasbanaynay sabab u tahay ilaahay wuxuu leeyahay wama asaabakum min musibatin fabima kasabat aydikum هذا إيشا مارتي يعني مارتي دعوة أي لذا وأنا كان ضدنا إن شاء الله تعالى دعوة ذا هذا نوحن كهذا اللي وحي كهرتك ولا ربعين مارتي قفك وكهرتك وإن أنا أوجعنا إني قدر كإلهي تعالى عليه إلهي وحن كبرينا إنه مارتي إيمان كانوا وصوله إسلام مدن نقدله خاتم مدن هاجيو إلهي وحن كبرينا إنه دبعتها إيش أنا قال لحيه إيش حاسد كان قال لحيه إلهي وحن كبرينا إنه أمة الإسلام كمال البيجوان أنت حنوسا عافية انت معناته يعني بعد يسن إلهي سبحانه والله سبحانه وتعالى على ما نقول وكيل.